السلام عليكم. هدي أد دربي هوست هاجن تهاي دربي قاسين وياهاي دربي كوجسو الدمي أو أد قبتي دربي قاسي أو أد استرادة أود بعض لا هاي دربي قاسي علي أو أنا وحكا قبنين هالكاسي وحا كل ميا أود هذه ويومان ترن مركا دربي جهيسيد دقيقة بدقيقة تقدم بيسو ساعة بساعة تقدم بيسو وحا كاب حيا أود أدو ترى بدن وحا ميشا كل ميا وقت ترى بدن waxaana dhacaysa in tabartaadu ay yaraato hadaba waxa jirta hadii aad hal wax ku mashquushid waxaasina aad awood saartid waxa dhacaysa waxaasi hadii xun yihiin in waqtiga uu kaaga lumo awoodii aad lahaydna ay meeshaas ku lunto aqligaaguna uu ku yiraahdo waxa aan kula wadaagayaa afarta sharci hadii aad saaxiib ka dhigatid maalin walbana aad joogtaysid waxa aad noqonaysaa qof wadadiisa saxda ah helo waxa qofka haga maalintii ama xil walba ha noqoto waa in qofku uu sharci ku nool yahay sharcigaasina uu yahay mid u qoran sharcigaasi hadii uu ku qoran yahay waqti kaama lumayo aqlina kaama yaraanayo waxa aad noqonaysaa qof awoodiisana mar walba isticmaala dunidani aan ku wada noolnahay waxa jira wax la yiraahdo maamulid hadii adigu aad ismaamulin waxa jiri doona dad adigu ku maamuli doono waxa aynu kugu maamuli doonaan waqtigaaga aqligaaga iyo awooddaada hadii intaasi ay kugu maamulaan waxa dhacaysa inaad la noolaatid tabardaro waxa dhacaysa inaad la noolaatid inaad ciil iyo caro aad ka bixi weydid farxaduna ay kugu yaraato hadaba waqtiga kugu badanayo waa saaxiibka shaahid biisani hadii aad kanaalkayga ku cusub tahay waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saartid hadii asxaabtayda hore ka mid tahane walba adduunka ka tag waa ku salaamaya hadaba afarta qodob aan kula wadaagaya qodobka koowaad waxa ay tahay hadii maanta ay jirto arrin kugu taagan arrintaasina aad damacdid inaad qabatid oo aad ku mashquushid oo aad adigu maskaxdaada saartid waxa kaga lumaya awooddaadii aqligaagii iyo waqtiga wax walba maanta ku hor taagan wax walba ha ahaadaan hadii aad u aragtid inay dhib yihiin aysan faa'iido ku ahayn ogolow inaad fasaxdid ogolow in aad ka hartid ogolow inaad wax kale ku mashquushid hadaba qodobka koowaad waxa ay tahay sharciga koowaadna wuxuu uu yahay in aad ku dadaashid wax walba maanta aad xal ka laadahay aad dhaqaaji laadahay ka har marka aad ka hartid waxa ku soo baxaya firaaqooyin aad u tira badan waqtigaagii iyo awooddaadii waxa aad ku isticmaalaysaa meel kale marka aad ku isticmaashid waxa noqonaysaa qof cashiro cusub barta waxaad noqonaysaa qof aqligiisa u isticmaala waxyaabo kale oo cusub laakiin hadii aad maanta dhan wixii koor taagan aad ku mashquushid waa adiga oo darbi kugu soo dhacay maanta dhan aad celinaysid aadan meesha ka dhaqaaqaynin sharciga labaad wuxuu yahay noloshu siday tahay ku aqbal maanta meel baa taagan tahay meeshay doonto ha noqoto eber baa taagan tahay koob baa taagan tahay laba taagan tahay saddex baa taagan tahay darajada aad maanta taagan tahay siday tahay ku aqbal hadii aadan ku aqbalin oo aad isku daydid inaad bedeshid waxa dhacaysa inay naftaada ku bedelanto wixii aan bedelmaynin ha bedelin waxa aad ku isku daydaa wax cusub inaad raadisid waxaas cusub waxa laga yaabaa inay kaaga fududaato waxaana doonaysid inaad bedeshid waxa laga yaabaa waqti inuu kaaga lumin waxaan cusub uu ka farxad badan yahay uu ka jilicsan yahay oo uu ka fudud yahay halka aad doonaysid waxaan kale inaad bedeshid ay kaaga lumayso waqti juhdi iyo awood wax walba sidee yihiin ku aqbal hadii aadan ku aqbali karin wax cusub bilow waa sharciga labaad iyo qodobka labaad sharciga saddexaad waxa uu yahay qalbigaaga raac qofka bilaadanka ah waxa haga waa qalbigiisa badana waxa dhacda in qalbigaaga iyo maskaxdaadu isku si u shaqeynin laakiin qalbiga waa ka xoog badan yahay maskaxdaada waxa laga yaabaa aqligaagu inuu saa'id yahay aqligaaga saa'id haduu yahane waxa uu yareynayaa macrifadaada laakiin qalbigaagu waxa uu ku geynayaa meesha dhabta ah ee aad u qalantid waxa uu ku tusayaa waxa saxda ah ee naftaada u baahan tahay mar walba waxa aad ku dadaashaa qalbigaaga hadii uu ku yiraahdo waxaas baa jira inaad ka fikirtid waqti siisid hadii uu ku yiraahdo qalbigaaga meeshan uma qalantid hadii uu ku yiraahdo qalbigaaga waxaas ayaad u baahan tahay mar walba niyadaada gali qalbigaaga waxa uu ku yiraahdo qalbigaaga marka aad raacdid waxa dhismaysa maskaxdaada
laakiin haddaad mar walba maskaxdaada raacdid waxaa dhacaysa in marka dambe aad ku dambaysid meelaada u qalmin waayo mar walba waxaad ismoodaysaa inaad caqli badan tahay mar walba waxaad ismoodaysaa inay wax kuu kordhayaan marka dambe waxaa laga yaabaa inaad god ku dhacdid saaxiib ka dhigo qalbigaaga waxa uu kuu sheegayana raac sharciga afraad waxa uu yahay waxa aad noqotaa qof mahadnaq badan haddii wax lagu sameeyo haddii aad wax wanaagsan samaysidbo naftaada xataa u mahad celi waxa aad wanaagsan aad samaysay mahadnaqaasi waxa ku dhismaya jismiyan iyo caqliyan iyo awooddaadaba laakiin haddii aadan sugin in lagu mahadnaqo ama aadan adigu isu mahadnaqin waxaa dhacaysa mar walbaba in wax aad tabaysid haddii aad wax guul yariisa gaartid isku mahadnaq haddii qof uu wax kuu sameeyo u mahadnaq haddii aad afartaa ku dadaashid waxaad noqonaysaa mar walbaba qof sharci haga sharci markuu ku hagana farxadaada way saa'iidaysaa waa saaxiibka Shaahid Bizaani oo ku dhahaya meel walba aad dunida ka joogtid xilli walba ay ku tahay farxad aan dhamaanin inaad ku noolaatid السلام عليكم